بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. برنامج كيني تحناها أخرس إيا أركتي وحان مركان كوكر فيني بوكو قري دكتور راقب السرجاني لما بحي أقومتا إيو ومضاها نسكيدا. barnaamijka qaybtiisii koobaad waxaan ku soo qaadanay oo lagu soo jeediyay aqoonta diiniga ah iyo qiimaha ay ummadda u leedahay. sheekhu ama doctorku waxa uu kitaabkan kaga hadlayay laba qaybood oo ka mid ah aqoonta waa aqoonta maadiga aanu naqaano iyo aqoonta shariicada ee diinta islaamka. inkastoo isagu uusan kala fogeynaynin balse haddana wuxuu isku soo dhaweynayaa labada aqoonood bulshadeena Soomaaliyeed. markaan u fiirsanana aqoonta tani waxa ay iyagu mar walba u arkaan in ay labadan aqoonood ay yihiin laba shay oo kala duwan, balse sheekhu isku soo dhaweynayo waana sababta aan aragtidan usoo bandhigayno anagoo rabna inaan isku soo dhaweyno labada aqoonoodna muhiimadooda ay u leedahay ummadda muslimiinta, gaar ahaan bulsho walba rabta inay horumartana aan sidii uu sheekhu usoo bandhigay aan usoo bandhigno. qaybtani waa qaybtii ka hadlaysay aqoonta maadiga iyo ummadaha sida ay u horumariso. waxa uu doctorku markaa isweydiinayaa in muslimiintu maanta ay takhalluf badan ay ku jiraan marka la eego dhanka culumta maadiga. waxa uu marka sheekhu isweydiinayaa talow arrintan maxay u dhacday in aqoontii maadiga ahayd, isagu ereyga maadiga uma isticmaalayo balse wuxuu isticmaalayaa العلوم الحياتية بوليه علومتي نوشة معناها نوشة بني آدم كهرمالك وسمينيسي إن نوشة بني آدم كقروح بناته سويسي. وعمك سويديني أقول ما هي تماضي ومحصاوي إن لكلا صاروا أما بعد كتبنا علوم تمادية إيضا علوم تاني أي أمة المسلمين تأم شعوب والبابا أو مجتمع والبابا أي هرمر أهر سيديسو. وحولي مركز الشيخو أرنتني وأرين gudaha muslimiinta ah waa arin fikirkooda iyo iyagu siday wax u arkeen iyo fikirkooda oo hoos u dhacay. qaybtaasi waa xagaas ayuu leeyahay, inkastoo ay jiraan in gacan dibadda inaga ahina ay iyada lafteedu sabab ka tahay oo uu leeyahay takhallufka muslimiinta in culumta maadiga ay iyaguna dib ugu dhacaan in ay sabab ay ka tahay in gacan dibadda ka timiday iyo reer galbeedka oo iyaguna raba muslimiinta inay dib ridaan ay qayb ka tahay. haddana wuxuu doctorku u arkaa in ay muslimiintu iyagu qaybta ugu weyn ay ceebtan ka qaadanayaan. waxa uu leeyahay doctorku culumta shareecada markii la yiraahdo waxaan u arkaynaa in culumta shareecadu ay tahay marka aan sameeyno shay ajir laga helayo qofku intuu baranayana uu cibaado ku jiro. dhanka kale waxaan u arkaynaa buu leeyahay in dadku markay culumta maadiga baranayaan ee qof uu jaamacad galo oo wax maadi ah ku mashquulo in ay arintaasi tahay qof diintiisa haleeyay oo yani diintiisa faraha ka qaado adduunyo u go'ay. wuxuu sheekhu leeyahay arintaasina waa arin aan sax ahayn oo fikir qaldan ah, waayo aqoonta maadiga waxa uu leeyahay sheekhu waa aqoon xadiiska nabiga wuxuu ahaa inama al-a'maalu binniyat. haddii niyada qofku hagaajisto oo uu u baranayo in ummadiisa muslimiinta ah iyo shacabkiisa mujtamaciisa uu la nool yahay inuu ku horumariyo wax ugu qabto in ay tahay culum ajir laga helayo, gaar ahaan xiriir la yeelanaysa islaamkii iyo shareecada iyo diinta islaamka xiriir la yeelanaysa, maadaama diinta ogoshahay cilmi walba oo diinta islaamka aan ku hor imanaynin balse ummadda horumar iyo waxa weeye wanaag u horseedaysiya barwaaqo. wuxuu sheekhu leeyahay usoo dhigayaa aragtiyo badan oo cajiib ah iyo macluumaad badan oo soo ururiyay. waxa uu leeyahay markaan ka hadlayno culumta maadiga ah ama culumta ku saabsan waxyaabaha nolosha bini aadamka xiriirka la leh markaan ka hadlayno, haddii aan eegno ayuu leeyahay jiilkii hore ee muslimiinta gaar ahaan saxaabadii waxaa ka mid ahaa ayuu leeyahay qaar tujaar ah oo ganacsatayaal ah. maantana ganacsiga haddii uu horumaray oo aqoon yeeshay in la bartaay, haddii markii horeba qaar ganacsatayaal ah oo ganacsanaya oo dad maaragtay يعني xoolo rogrogayay oo ganacsi ka shaqeynayay saxaabada ku jireen aqoonteeda in la bartaayna maanta qofkii niyadiisa hagaajiyay in uu ajir ka helay ayuu sheekhu arintan uu maartay isaguna ku sheegaya. waxa kale oo kamid ah inay jireen qaar beeraley ah maantana beeraha iyo habka loo beera iyo maartay waxa kan waa aragteen culumteeda iyo in jaamacadaha lagu darso. waxa kale oo kamid ah inay jireen qaar
farsamo yaqaan ah oo seefaha samee yaqaano oo guryaha dhis yaqaanay oo maaragtay gacantooda ilaahay barakeeyay maanta tanna waa ay jirtaa arrintaasi culum bayna yeelatay gaar ahaan jaamacadaha lagu darso asxaabta ka hor waxa uu doctorku leeyahay ambiyada ilaahay ayaa iyaguna ahaa qaar lahaa iyaga oo loo soo diray muhiimad weyn oo ah inay ummadda shareeco iyo diin gaarsiiyaan haddana waxaa jirtay muhiimad kale oo ay ku garabooteen oo ahayd in ay ummadda maaragtay ay ku dhex nool yihiin aysan diin bas ah gaarsiinaynin oo diintaaban aysan ku mashquulsanayn balse ay lahaayeen xirfado adduun oo ay ku shaqaystaan gaar ahaanna noloshooda nolol maalmeedkooda ay ku maareeyaan nabi walbana waxa uu lahaa xirfad uu noloshiisa ku maareeyo balse waa kuwii quraysh ay nabiga ku dacaayadeynayeen nabigan suuqa wareegaya nolol maalmeedkiisii raadsanaya muxuu ahaa taas oo caddayn u ah in waxyiga iyo diinta kusoo degaysay ambiyada inaysan ahayn mid loogu qori jiray mushahar amase nolol maalmeedkooda loogu maarayn jiray balse ay ahayd shareeciyo diin ummadda ay gaarsiinayaan dhanka kalena noloshoodii ay iyagu maaraynayeen si ay u maareeyaanba waxaa ka mid ah nebi aadam oo aabihii basharku uu kasoo bilowday ah waxayna xirfadiisu ahayd ayuu leeyahay doctorku waxa uu ahaa xaraad ama beeraley ayuu ahaa beerta iyo habka loo waxeeya ayuusan aqoon u lahaa waxaa kaloo ka mid ah nebi daawuud oo xadaad ayuu ahaa waxaa kaloo ka mid ah nebi nuux oo waxa uu ahaa nebi najaar ah oo isaguna yaqaana habka wax loo sameeyo ama habka wax loo dhiso waxaa kaloo ka mid ah nebi idriis oo xirfadiisu ay ahayd nebinimadkiisa u dheerayd taariikhduna ay ku xustay inuu ahaa khayaad uu yaqaanay habka wax loo talo iyo maaragtay khibradda noocaas ah nebi muuse waxa uu ahaa raaci ayuu ahaa oo waad garanaysaan in xilligii ilaahay dirayay nebi muuse inuu ahaa raaci oo uu ka shaqaysan jiray sidoo kale nebi maxamed isagana yaraantiisii iyo maaragtay nebi wuxuu ahaa shaqaysta raaci buu soo maray sidoo kale ganacsi buu ku jiray intii maaragtay nabiga sal ly slam uu nabinimadka loo soo dirayna waxa uu nabigu miyuuna wax ku qaadanayn waxay kusoo degaya balse isaga noloshiisa maaraynayay waana arrin u baahan ka fikir iyo fiirsi maadaama ambiyadii ilaahay ay sidaas ahaayeen waxa uu doctorku leeyahay inaan kala saaro oo culumtii maadiga aan u aragno in ay tahay culum يعني لو دنبابي أما هدي وقت لو بحي وقت إنه خسارة يو إن أي أرنتها سي أرن صحة إنسان